xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani mudane Khadar Xuseen Cabdi ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay inay ka cabsanayso doodihii siyaasiga ah isla markaasna ay adeegsanayso awood. xogayaha Khadar Xuseen Cabdi ayaa sidoo kale ku baaqay in xir ilaalinta iyo maxkamadaha dalku ay ka madax banaanadaan xukuumadda Soomaaliland waxaanu hadalkaasi ka jeediyay munaasabad lagu xusaayay xuska maalinta xuquuqda aadamaha. waxyaabaha mushkiladaha ugu waaweyn ee haystay xuquuqdeena dhibaatada ku ah waxa kamid ah waxaynu ku dhaqanaa xeerka ciqaabta guud ee imika halkan laga refer gareynay 1963 baa la sameeyay waa xeerarka loo adeegsado amniga iyo kicinta iyo sheekooyinka haddaad maqasho waa sheekooyinkii siyaad barre iyo waxyaabihii dhaqanka u ahaan jiray dowladihii kala taliska ahaa marka run ahaantii waxaynu u baahanahay xukuumaduna inay fuleynimada iska dayso qofka hadlaya ee doodaya waxa uu ka doodayaa waa siyaasad waxa uu dhaliilayaa waa wixii xukuumaddu ay samaysay qof fulay oo aan waxba iska celin karin oo aan yani wixii sharcigu jiray waxba iskaga celin karin ayuunba intuu muruqiisa kor u taagan deetana dadka xidhxidha dadkani qoriyo ma sitaan inamadan miidiyaha yaryar ee kamaradaha sitaan wuxuuda xabadi kama dhacdo laakiintiisa qofka gafana in loo maro dariiqa sharcigu dhigaayo waa marka sharcigeedu qurux badnaanaya waa marka wadajirkeedu qurux badnaanaysa waa marka umadnimadeedu qurux badnaanaysa marka aad institutionka aad ku fadhido ixtiraamto institutionka kale ee dadka kala joogaana aad ixtiraamto maanta waxa muuqata Soomaaliland xaqiiqatan marka runta laga hadlayo halkeeda laga baydhay in institutionskeenu dhamay hal qof u shaqeynaya qof walibana marka uu kursiga yimaado oo dhanay shaarku adigu ku leeyahay ee sidiisa ku hayso markaas ay taa uga digtoonaano xeer ilaalintu waxay leedahay maxaa ku dhacday shaqooyin ay tahay inay qabato inay madax banaanaato loogu talagalay maxkamadu inay madax banaanaadaan baa loogu talagalay sharciga karaameeyay oo sidaasi ka dhigay inay taa ku dhaqmaan weeyaan talaga doonaya hadii ay taa ku dhaqmaan wixii laga xumaanaya ma jiro. geesta kale waxaa hadalkaasi xogayaha ka gadooday xubno kamid ah golaha wasiirada oo goobjoog ahaa munaasabadaasi waxaanay ka jawaabeen hadalkaasi ka soo yeedhay xogayaha wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuur mudane Maxamed Xaaji Aadan iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane Mustafa Maxamuud Cali. ilaalinta xuquuqul insaanku waxay u taallaa xukuumadda halka waxa ka cad xisbigu inaan wali fahmin xuquuqul insaan waxa ay tahay xuquuqul insaan waxay u taallaa xisbiga waxay u taallaa xukuumadda waxay u taallaa qof kasta oo miir qaba waxay u taallaa kala ilaaliyo wala waajib ilaahay saaran xukuumadaha anagu waa lahayn in la dhaliilo laakiin waxa xaqna siinaya wax jira in lagu dhaliilo ina waxaan jirin lagu dhaliilo taa lafteeda ayaa xuquuqda raac waxaan leenahay in uu hadda xogayuu yiraahdo
maba jiraanba xeerarka dalku waa wax la iska sheego oo meelaha laga sheego ma shaqeeyaan taa lafteeda xuquuq darra waxaanu si ilaahay u rajaynaynaa inay fahmaan xuquuqda islaamka. Axmed Nuur Ciise, Telefishinka Bulsho, Hargeysa.